بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشركani hore wuxuu ku saabsanaa sida loo delete karayo database intaynu guda gelin sida loo sameeyo tableska waxaanu eegi doonaa noocyada data typeska MySQL support karayso data typeska waa nooca data mar walba ku haboon qoraalkaaga haddii aad magac gelinaysid haddii aad qoraal dheer gelinaysid haddii aad time gelinaysid haddii aad age gelinaysid nooc walba data types ay leedahay ama nooc data oo loogu talagalay marka MySQL ku waxay taageertaa ama support karaysaa saddex nooc oo weyn oo data typeska nooc number la dhaho waqtiga iyo amiin ku saabsan iyo nooc la dhaho strings oo xuruf ku saabsan mid walba tusaalaheeda ayaynu eegi doonaa noocyada tusaale ahaan numeric data typeska ama numberada kale tusaalahooda waxaa ka mid ah haddaad doonaysid inaad database-kaaga aad ku dartid student ID ama qof ID-giisa oo tiro ah tusaale 10 ama 100 waa inaad doorataa data type kala dhaho integer oo xaggan midigta ka qabanaysa ka bacdina u cayintaa xuruftaasi limit-kooda lacagaha kale marka doonaysid inaad database-ka ku dartid kalaama fee student fees oo kale waa inaad qaybta lacagta ah aad ka dhigtaa decimal haday tahay dollar ama haday tahay shilling haddaad rating system aad sameynaysid system wax lagu qiimeynayo ama sida mataqaana koorsooyinka oo kale ama qof miisaankiisa oo kale haddii aad systemkaaga ku soo daraysid waa inaad doorataa nooca data type float oo kale marka waxa la wixii jajaba oo kale float ayaa dooranaysaa nooca labaad ee data type-ka waxa la dhahaa date and time sida ku xusan qof oo kale marka sheegaysid waa inaad doorataa year 1991 saas oo kale yearku wuxuu qaataa sometimes 4 xuruf marka qaarkoodna 2 qaataa qofku taariikhda dhashay oo kale marka sheegaysid waa inaad doorataa date kabacdina aad doorataa qaabka ay date-kaasi isugu xigayo inta badan date kaliya loo daayaa wadamada qaarkood waxay isticmaalaan sanad bil iyo date-kii caadiga ah qaarna waxay isticmaalaan sanadkii dambeysiyaan haddaad doonaysid xilliga uu website qofku ku soo biiray ama laga diiwaan geliyay school oo kale ama jaamacad oo kale inaad ku soo dartid data type-ka ay qaadanayso waa date and time marka waxa isla socdaa taariikhdii iyo waqtiga ayaa isla socdaa nooca markaan ka soo gudubno waxaanu eegaynaa qaybta xurufaha ama xarfaha magaca qof oo kale marka diiwaan gelisay magaca koowaad qofkan haanistiisa magaca labaad magaca aabihii magaca hooyadii inta badan waa inaad doorataa xurufta la dhaho varchar data type-ka la dhaho waa inaad doorataa ama varchar si aad u taqaanid waa inaad u cayintaa inta ay noqonayso tusaale ahaan 20 qofka magaciisu kama badan karo 20 xaraf tusaale ahaan haddaad doonaysid qoraal dheer ama sida Facebook post marka qofku soo dhigo postiga oo kale ama website aad sameynaysid oo qaybta aad ugu talagalay contentiska ama description qof ama biography-giisa oo kale aad doonaysid inaad waxaysid data type-ka aad doonaysid waa inay noqotaa text marka qoraal dheer weeye qaybta aynu ugu dambeysayna waxa weeye waxa la large objects tusaale marka doonaysid inaad database-ka ku dartid sawir oo kale ama file PDF Word oo kale waa inaad doorataa nooca data type-ka la dhaho blob ayaa dooranaysaa intaas waxaynu ku soo gabagabeynaa noocyada data typeska inta ugu waaweyn